سعيد عبد الله دني oo Soomaaliya ka soo qabtay xilal kala duwan oo uu ka mid yahay wasiirka qorsheynta iyo xildhibaan dowladda federaalka sanadkii 2012 ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Deni oo siyaasadda ku soo biiray sanadkii 2002 ayaa markii ugu horeysay ee uu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashadii 2017 wuxuu ka mid ahaa musharaxiintii saaxiibka dowla ahaa madaxweynaha xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud. سعيد oo xilligaas ka mid ah 24 musharax oo u taagan xilka ugu sareeya dalka ayaa helay 18 cod oo ka mid ahaa 313 mudane oo codeynayay maalintaasi isagoo khudbad u jeedinaya 48 xubnood ee Puntland ku metelaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu xalay qiray in doorashada furan aysan ka dhicin Puntland iyo dowlad goboleedyadaba taasi oo uu sheegay inaysan iyagu sababteeda lahayn balse ay ahayd mid boob ah oo ay xal u arkayeen. madaxweynaha ayaa cadeeyay in hadafka ugu weyn ee uu leeyahay ay tahay sidii meesha looga saari lahaa madaxweynaha hadda ku fadhiyo kursiga ee Farmaajo uuna rabo inuu kala shaqeeyo cid kasta oo aan isaga ahayn oo ku soo baxaysa garabna ku siin doono. Deni wuxuu sheegay inay hawshan ka soo shaqeynayeen muddo 3 sano isaga iyo saaxiibadiisa siyaasadeed isagoo sheegay in maalmaha soo aadan uu qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah oo la xiriira ololihiisa doorashada. Deni oo dhawaan ay u buuxsantay 3 sano oo ka mid ah madaxweynaha madaxweynaha Puntland ayaa ugu dambeyn go'aansaday inuu Muqdisho u boqolo isagoo fursad muhiim ah u arka inuu heli karo codadka ugu badan ee xildhibaanada ka soo galay Puntland iyo Jubbaland oo ay xulafo siyaasadeed yihiin. Haddaba waxaan eegi doonaa caqabadaha Deni soo wajihi kara kadib aadistiisa Muqdisho. kala qaybsanaanta Puntland gudaheeda ka jirta. madaxweyne Deni ayaa ka tagay Puntland oo kala qaybsan gobolada qaar oo kala irdhoobay dagaalo laga maarmi karay oo ka dhacay Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garowe. waxgaradkii iyo hormuudkii Puntland oo xakama uu ku qabtay siyaasiyiintii waaweynaa ee Puntland oo uu ka hor istaagay xilal ay hore ugu fadhiyeen iyo kuwo hor leh oo uu damac kaga jiray. tanina waa caqabad nabar ku ah ololihiisa doorashada ee madaxtinimada Soomaaliya. 2 siyaasiyiinta waaweyn ee Puntland ee Deni uu ka takhalusay. Deni wuxuu u jeeday xilalka aqalka sare iyo golaha shacabka siyaasiyiin magac ku leh Puntland oo quldareynayay inay xilal ka helaan xilli doorasheedkan waxaana ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, madaxweyne Gaas, Professor Julule, wasiir Jamaal, wasiir Ciid, wasiir Xayir iyo wasiir Cabdullaahi Bilanuur oo dhammaantood doonayay inay aqalka sare iyo golaha shacabka xilal kala duwan ka qabtaan. Tanina waa dharbaaxo weyn oo ku dhacaysa iyo kala dhantaal ay ku sameyn karaan ololihiisa doorashada. ra'iisul wasaare Sharmaake Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ah siyaasi saameyn togan ku leh siyaasadda Puntland dhowr marna soo qabtay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Nairobi ka wada ololo uu isugu taagayo xilka madaxweynaha ee Soomaaliya. Sharmaake oo maalmihii dambe la arkayay isagoo shirinaya xildhibaanada iyo senataradii dhawaan la doortay ee Puntland waa caqabad weyn oo ololaha Deni marka la lid ku ah. Siciid ayaa sidoo kale Cumar Cabdirashiid 2016 u dhigtay isbaaro siyaasadeed oo uu ku kala dhantaalay codadkii Puntland ka imaanayay taasi oo fashilisay rajadii uu ka qabay madaxweynaha Soomaaliya. tii oo ay u sii dheer tahay Deni oo xitaa Sharmaake u diiday kursigii aqalka sare ee uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay. ololaha Deni ee xamar Siciid wuxuu dhammaan ololihiisa doorashada u xilsaaray shakhsiyad reer Puntland gaar ahaan kuwa ku hayba mana jiro siyaasi ama aqoon-yahan ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo qayb weyn ka ah ololihiisa doorashada. taasi waxay ku keeni kartaa in reer Muqdisho ay u arkaan Deni inuu yahay nin aan Soomaali isku wada karin iyaduna waa caqabad muuqata oo ololihiisa saameyn taban ku yeelan karta. xildhibaanada iyo senatarada uu soo saaray madaxweyne Deni oo Puntland ka soo saaray xildhibaano iyo senataro uu aaminsan yahay inay daacad u yihiin ayaa durba waxaa soo baxaya shakiga iyo walaaca laga muujinayo shakhsiyaadka xilalkaasi uu u dhiibay oo badankood aan lahayn aqoon iyo waayo aragnimo siyaasadeed oo wax weyn ay kaga tari karaan ololihiisa doorashada. xildhibaanada qaarkood ayaa baarlamaankii hore ka tirsanaa waxaana iyagana la aaminsan yahay inay u ololeynayaan dhinacyo kale oo ka baxsan madaxweyne Deni. tani iyaduna waxay muujinaysaa nuxuuska ku imaan kara hanka madaxweynenimo ee Dr. Siciid Cabdullaahi Deni. dhammaan qodobadan aan soo sheegnay waa kuwo lid ku ah ololaha musharax madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. fasiraadaha kale ee qaybtood waxay bixinayaan in Deni uu yahay shakhsiga kaliya ee musharaxa ah ee isku halayn kara codad rasmi ah oo uu ka helayo maamulada qaybtood. dhawaan sidoo kale waxaan baahin doonaa caqabado ka jira gudaha Puntland oo dhib ku ah hanka madaxweynenimo ee Siciid Cabdullaahi Deni oo ugu dambeyn ku dhawaaqay musharaxnimadiisa xilka ugu sarreeya ee Soomaaliya. sidoo kale waxaan isdul taagi doonaa maxaa ka rumoobay ballanqaadadiisii Puntland.